وضعي دولي يالكسولي وضع وردقة warbixinta dheeraadka ay ka soo baxaysa golaha shacabka baarlamaanka maanta wixii ka dhacay ayaa waxa ay tahay mid cajiib ah oo dadku ay aad ula yaabeen isla markaana waxa halkaasi markii aroornimadii subaxnimadii ay isugu tageen xildhibaano gaaraya ku dhawaad 200 oo xildhibaan ayaa waxa ay ahaayeen markaasi laba kooxood oo kala duwan oo kooxina ay raacsan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo shirgudoonka kooxina ay ka horjeedo ay raacsan tahay معارضة الصومالية أنت واحد فريق يقول بيجي قالها شعبك أي شرعيا لو قلت لك إنه شان سديرة تكبش جانوري ما دام وقت يدو جواب سياي أو أفرتا أفريقيا كبش أبريل وكل يوم ودو هذا بقى محاكى دعي بعلمك جودي سا واحد استقصد لا بحث اللبان ومركزي يجو جودها إسكوفيري حلبان يوسير مركزي أو مركزي جودها إسكوفيري سيدو كله واحد مركزي إذا نال أقاطي فرنبيدي أي الله السلام ذي بوقي صباحا كأي سرافي isla yeeray anta waxa halkaas ka dhacay waxay noqotay mid markaasi caadadeed ahayd oo aan hayn ceebtid sidii baa u dhici jirtay marka xilliga doorashadu ay soo dhawaatay ayaa kale waxay tahay baarlamaanka maadaama ay maanta maalintiisa ugu dambeysay ay tahay kalfadhi caadiga ay yeeshaan sharciya baarlamaanku sida uu dhigayo oo waqtigoodu gabaabsi yahay ayaa waxa ay markaasi shirgudoonku golaha wakiiladu ay soo hordhigeen wax ka bedel in lagu sameeyo dastuurka Soomaaliya oo markaasi shan tub oo ah markaas ka tirsan dastuurka Soomaaliya arintaasi xildhibaanadu waa ay diideen waana ka biyadiideen kadib waxa dhacay markaasi in buuq iyo qeylo markaas halkaasi isla furanto oo kooxi mucaaradka ah inta ay Faranbiya qaataan ay shirgudoonka goobtiisa inta yimaadaan ay la wareegaanba shirgudoonkii iyo miiskii iyo fadhigiisii isla markaana ay diidaanba in shaqada halkaasi la wado xildhibaanadaasi waxay gaarayeen ilaa 100 xildhibaan kadib waxa dhacday markaasi in ay waraaqihii markaa loo qeybiyay kalfadhigii gelinkii hore markii loo qeybiyay shirgudoonku u qeybiyay waraaqaha wax ka bedelka ah ayaa markaasi waraaqihii oo dhan waa la jeexjeexay waana la daadiyay meesha ay lagu daadiyay oo kooxi mucaaradka ayaa saa sameeyay hadaba arintaas marka dhacday kadib ayaa waxa dhacday in markaasi firdhigii iyo buuqii oo socda ay markaasi laba xildhibaan ay isfarsaaraan xildhibaanka loo yaqaano xildhibaan farataag iyo xildhibaanka loo yaqaano xildhibaan firi ayaa markaasi iyagu gacmaha is saaray sida halkan ba ka arkaysaan videoga halka idinka muuqdaba gacmaha ayay is saarayaan hadaba aan yara daawano xildhibaan xasan xildhibaanada gadaal jooga idinkoo maasan senator fartaag iyo xildhibaan xasan yare xildhibaan xasan senator fartaag meeshaaba fadhiisaaba maasan المحورها سوجيدين على قيبيو xildhibaan xasan واتهاي داود سيدا أول أركيسان با gacmaha ayay isula tageen xildhibaan wax kalena ma aha waxa la isku tagay waa mucaarad baa la isku yahay labada garab ayay kala taageersiin labadoodaasi arintan markaasi waxa ay muujinaysaa in markaasi aan la ogolayn in ay golahaasi maalintii ugu dambeysay dastuurka wax laga bedelo maadaama dastuurkan la bedelaya qodobo hore oo markaasi ay bedeleen baarlamaanka iyo dawladda xasan sheekh ay bedeleen ay isku haystaan maamul goboleedyadu oo maamulka Puntland iyo Jubaland ba ay arintaasi ay tahay arinta ay ku maqan yihiin ay leeyihiin dastuurkii anaga oo aan waxba aan wada goob joog ahayn ayaa wax laga bedelay oo aan wax la weydiin maadaama arintaas hore u dhacday ay haddana waxa ay xasan sheekh doonayaa in uu markaasi qaybo kale uu ka sii bedelo iska badaa tii hore ee lagu muransanaa ee lagu kala tagsanaa ee lagu kala maqnaa haddaba arrimahan ayaa waxay tahay arrimaha cakiray dawladda Soomaaliya inay noqoto mid hana qaada oo markaasi cageeda isku taagta shirgudoonka golaha shacabka ayaa gabagabaan ugu dambeyntiina waxa dhacday in markaasi shirgudoonka in ay ciidanka booliisku ugu dambeyntii waxa dhacday in ciidanka booliisku ay gudaha u soo galaan markaasi ay kala kaxeeyaan xildhibaanadii isqabsaday oo markaasi la kala dareeriyo halkaana lagu soo xiro shirkii markaasi ay golaha lahaayeen oo markaasi ay waxba ay ka socon weydo arintaasi lama garan doono ay dib u noqon doonto balse hadalka gudoomiyaha oo aanu aragnay sida uu hadlayay ayaa cajiib ahayd haddaba shirgudoonka oo gabagabadii markii la kala dejiyay buuqii iyo qaaladii kala dejiyay ayaa waxa uu shirgudoonku ku dhawaaqay in ay markaasi shirkaasi golaha maanta uu xiran yahay wax hawlana aan la qaban isla markaana waxa uu sheegay in loo qeybiyo nuqulka dastuurka gabi ahaan dhammaan xildhibaanada ka soo qayb galay ay soo akhristaan wax ka bedelkaana la sameyn doono oo markaasi ay dib ula hadli doonaan haddaba xildhibaanka oo markaasi arrintaas ka hadlaya waxa uu yidhi sidan dabasho wanaagsan haddaba shirgudoonka oo arrintaasi ka hadlaya
gudoomiyaha golaha shacabka oo markaasi soo xiray shirka oo sheegay in waraaqihii loo qeybiyey dibna isugu soo noqon doono kooxa xildhibaanada markaasi qeylinayna ayaa dib ayaanu kala maanta si fiican loo soo hadaray 180 waxaa ka soo hadartay golaha shacabka 31 aqalka sare waana loo qiimiyey hana soo akhristo sidii caadada noo ahaan jirtay marka xildhibaanada soo qiibsan ay fariyaa maaragtay insha Allah dib u soo noqon doona xildhibaanada hoogo isbariirinayaan waa la hadli doonaa qofkii waan hadal ogol marka shirkani maanta saasa nooga xiran yahay xildhibaanada sharafta leh maanta waa tahay dawadayaal waad arkayseen waxa uu markaasi gudoomiye aadan madoobe sida uu markaasi u soo bandhigay in dastuurkan wax ka bedelkiisa aanu ahayn mid markaasi halkaa ku eg oo lagaga noqonayo balse ay isu soo noqon doonaan xildhibaanadana gaar loola hadli doono waa sida uu sheegay gudoomiye aadan madoobe waxaa muuqata in markaasi gruubka xasan sheekh iyo shirgudoonka oo iswada leh ay markaasi iyagu xuurto ku haystaan baarlamanka soomaaliya waxaana suurtagal ah in markaasi dib ay shir dambe ay u galaan oo aan sharci ahayn maadaama kooramkii xildhibaanada aanay u codeynin in markaasi golaha shacabka bil loogu daro shaqadooda balse su-aasha waxay ku xiran tahay balse arrintani waxay ku xiran tahay haddii xisbiyada haddii golaha mucaaradka sida halkan ka muuqata guddoomiye hadalka uu leeyahay waxaa ka muuqata in markaasi ay iyagu gacanta ku haystaan awoodda oo markaasi golaha shacabka uu hawsha shaqada sii wadan doono waa sida uu hadalka u dhegayay balse lama sheegin in golaha shacabka waqti loogu daray bil dheeraada inay shaqada sii wadi karaan maadaama sharciyan ay maanta ahayd kalfadhigii ugu dambeeyey ee golaha ay yeeshaan balse iyagu jeebkooda ay kala soo baxeen in markaasi ay ku darsadaan bil dheeraada sidii la sheegayay markii horeba oo hawshaasi dastuurka lagu bedeli doono guddoomiye waxa uu sheegay in markaasi ay xildhibaanadu dib isugu soo noqon doonaan oo markaasi ay soo akrin doonaan qodobadii wax ka bedelka ajendaha loo soo dhigay isla markaana ay la hadli doonaan kooxda yar ee markaasi iyagu waa sida uu hadalka u dhigaya ay markaasi dhammayn doonaan hawsha muranka dhexdeeda ah balse su-aasha isweydiinta le waxay tahay kooxda markaasi mucaaradka iyagu ma ka soo xaadiri doonaan haddii loo qabto shir dambe oo markaasi ay goluhu ay dib loo furo haddii golaha dib loo furo inkastoo guddoomiye aanu ku dhawaaqin in goluhu la wada xidhay gebigooda balse haddii golahaasi markaasi shaqo dib kale loo bilaabo haddii shaqada dib loo bilaabo golaha xubnaha xildhibaanada mucaaradka ahi ma ka soo qeybgeli doonaan waa su-aasha la isweydiinayo haddii laga badan yahay waa dhici kartaa in markaasi majority-ga kooramka inuu xidhmo ayuunbay ku xiran tahay baarlamanku arrintan waxay muujinaysaa in markaasi awoodda xasan sheekh maxamuud uu ku leeyahay baarlamanku ay tahay mid aan la dhayalsan karin isla markaana awood weyn uu ku leeyahay waa tahay dawada wixii faahfaahin ka soo baxa wararkaas ku saabsan muranka baarlamaanka kala soco EBC News waad mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته